xafladani ballaaran soo dhaweynta gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Hiiraan qaybaha kala duwan ee ka kala socda mas'uuliyiinta dawladda nagala socota ururada dhalinyarada ururada haweenka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waxaan aniga ku hadlaya magaca dhalinyarada gobolka Hiiraan waxaan idinka mahad celinaynaa qaabkan wanaagsan ee aad nagala soo qayb gasheen xafladan haddii aan wax yar iftiimiyo Muno Xasan Maxamed inta aan ka aqaano Muno Xasan Maxamed waxa ay ku dhalatay gobolka Hiiraan waxa ay ka mid ahayd yaraanteedii ilaa iyo hadda inta aan ka aqaano waxay ka mid ahayd dhalinyaradii sida aadka u firfircoonaa ooga soo qayb qaatay horumarinta gobolka Hiiraan run ahaantii haddii aan dhaho wax badan baan ka sheegayaa waxaan u maleynayaa ma ii suurtageli karto oo waqtiguna ciriiri buu nagu noqonayaa laakiin waxa aan mataqaanaa ku soo koobaya hadalkayga qof walba oo dhalinyaro ah waajibka saaran waxaa weeye oo islaamka markii aan fiirino rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam dadka uu ku faani jiray waxay ahaayeen shabaabkay ahaayeen dhalinyaraday ahaayeen run ahaantii Muno waxaan u jeednaa halkaaba fiiriyo sawirada halkaas oo kaliyaaba idinka filanba dowrkeeda halkaas maxaa la yiraahdaa oo ku cad yahay taasina intan iyo in ka badan oo ay soo qabatayna maxaa la yiraahdaa way jiraan waxaan leenahay markaasi dhalinyarada Soomaaliyeed dhalinyarada gobolka Hiiraan in aan garab istaagno la shaqeyno maxaa la yiraahdaa waqti walba oo ay noo baahan tahayna waxaan leeyahay anigoo ku hadlayo magaca dhalinyarada gobolka Hiiraan in aan diyaar u nahay in aan garab istaagno dowrkeeda aadka muhiimka oo ay firfircoon ay maxaa la yiraahdaa oo qayb qaadanayso horumarinta gobolka Hiiraan annaga ahaana mar walbana waan ku garab istaaganahay Muno Xasan Maxamuud aad u mahadsantiin assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh